Assalaamu calaykum waraxmatullah. Kusoo dhawaada qaybtii labaad ee qisadii ku saabsanayd gabadhii Kirishtaanka ahayd ama Nasaarada ahayd ee diinta Islaamka qaadatay kadibna ka sheekaysay qaabkii ay ku muslimtay ee cajiibka ahaa la yaabka badnaa. Waxay noo maraysay qaybtii hore ayadoo go'aansatay in kitaabka Baybalka ah sida gabdhaha muslimiinta ee saaxiibadeeda ay ugu dhex akhriyaan baska iyo tareenka ayadoo waliba la maqlayo in ayaduna ku daysato oo ay kitaabka Baybalka ah ku dhex akhriso baska sidoo kale. waxay noo maraysay ayadoo baskii dadku ka buuxeen soo raacday kadibna bilowday inay kitaabkii akhriso waliba waxay dooratay sidaan hore u soo sheegnay qaybihii dhalinyarada muslimiinta ee baaltooga ka dhageysatay wax ka sheegayeen ee ku saabsanaa Xisqiyaal iyo Nashiid al-Inshaad labadaas kitaab oo Baybalka ku jira oo ay ku qoran yihiin erayo aad iyo aad u yaab badan oo ku saabsan jacayl iyo tilmaamo laga bixinayo maxaa la yiraahdaa sida Nashiid al-Inshaadka oo kale tilmaamo nin aad u malaysid inuu jacayl hayo oo ka sheekeynaya gabar uu jecel yahay waliba erayada iyo waxyaabaha uu sheegayo aan la xishoonaynin oo gabadhii jirkeedii mid u tilmaamaya iyo sida Xisqiyaal oo kale ka sheekeynaya Google Dhaaf iyo waxyaabo la mid ah oo aad looga xishoodo waxay tiri waxaan bilaabay inaan akhriyo Nashiid al-Inshaad dadkii geesahiga fadhiyay oo dhan ayaa isoo fiiriyay si qaab la yaab leh ay fiirinayaan qaarkood way qoslayaan dhalinyarada oo kale laakiin arintani waxay ahayd bilow waxay tiri dhag jalaq uma siinin waxaan bilaabay inaan geesinimo isgeliyo oon sii akhriyo markaan cabaar akhriyay ayaa waxaa garabkayga si yar u soo istaagay wiil dhalinyaro ah oo ciyaala suuqnimo ka muuqato kadibna markii hore aniga maanan arkaynin garabkayga inta soo istaagay yiri kelmad aad u xun oo fawdo ah oo ciyaala suuqnimo ah oo gabadha uu ku fawdaynayo erayada ay akhrinaysa darteed ayuu gabadhii ku yiri waxay tiri waxay ahayd kelmadaasi seef in madaxa la iiga dhuftay oo kale maxaa yeelay waxaan dareensanaa inaan akhrinayo kelmado aan aaminsanahay inay xag Ilaahay ka yimaadaan marka meeshii ay qalbiyada dadka la hadli lahaayeen inay dareenka dadka la hadlaan oo qofka dadka ugu ciyaala suuqsani oo soo aado waxay tiri waxay ahayd arin aan marnaba filaynin oo dhaawac aad u weyn u geysatay iimaankaygii aan aaminsanaa Kirishtaanka iyo kitaabka Baybalka ah waxay tiri waxaan ugu jawaabay ma ka heshay kitaabkan ma ku cajabiyay kitaabkan ayaan iriyay tiri markaasuu iriyay tiri 100% waliba wuxuu ii sii raaciyay tiri waxaan diyaar u ahay inaan wada akhrino asagoo eragaas ula jeeda edeb darro kale oo taas ka sii fog waxaan iriyay tiri soo kuma cajabin qaado kitaabka waa kane kitaabkian u dhiibay tiri baskii iyo meeshii wixii dhan waa ka tagay tiri saaxiibadii xataa meesha ka dhawaa waa ka fogaaday baskiina waa ka degay waa iskaga cararay meeshii maalintaas wixii ka dambeeyay waxaan go'aansaday tiri dib dambe inaan kitaabkaas u furin sida dareensantihiinba gabdhaha dalalka carabta ku nool oo xataa Kirishtaanka ah dhaqamo xun way mar walba way iska jiraan muslim iyo Kirishtaan intaba waxay yihiinba laakiin xishood intooda badan dad xishooda oo xishoodka gabdhaha lagu yaqaano leh ay u badan yihiin intooda badan yacni muslim iyo Kirishtaan iyo waxaas dhan ma kala lahaan waa dad intooda badan dhaqan waxa jiro oo ah xishood ku saabsan oo gabdhuhu ay leeyihiin dad xun mar walba way jiraan laakiin dhaqankaas guud jira marka gabadha sidaas lagu yiri waxay dareemaysaa dhaawac aan dabiici ahayn maalintaas wixii ka dambeeyay waxay tiri waxaan go'aansaday inaan dib dambe u furin kitaabkaas oo aan asaga iyo aniga maalintaas isku kaana dambayso waxay tiri gurigeygii ayaan ku soo laabtay anoo murugada xanuunka iyo dhibaatada ay haysata aanan la tilmaami karin ayaan gurigeygii imid maqribkii ayaan guriga imid waxaan bilaabay qolkeygii inaan dalaq iraahdo kadibna aan hoos qataar ka soo xirto waxaan bilaabay tiri inaan ooyo xilli jiif ayay tiri dadkii wax yar kadib waa la iska kala seexday aniga waxay tiri qolkeygaan soo xirtay halkaas ayaan habeenkii oo dhan murugo la joogay tiri waxaan bilaabay tiri inaan Ciise baryo oo Maryama baryo maxaa yeelay labadaba ayda Ilaahay ka aaminsan yihiin iyo adiga waxyaabo noocaas oo kale Ciise kale Ilaahay ka aaminsan yihiin Maryamna way baryaan inta badan qaarkoodna waxay ka aaminsan yihiin inay hooyo u tahay Ilaah oo Ciise u yaqaan marka adiga arrimo ayaga aaminsan yihiin waaye waxay bilowday inay bariso Ciise iyo Maryamo waxay tiri habeenkii oo dhan sidaas ayaan ku jiray labadii saqda dhexe ama 8 saac qofba sidoo u yaqaano ee saq dhexe ayaan waxaan ku gaaray soo jeed dadkii oo dhan hal qof oo soo jeeda gurigeena ma jirto ilaa aniga maahane waxay tiri markaan daalay rafaaday banaankan u soo baxay jaranjartii buildingka aan deganeen ayaan korayay tiri dabaqa ugu dambeeya markaan maraayo ayaa waxa bilowday tiri ama aan la kulmay roob iyo dabayl iyo gugac waxyaabo aad u tiro badan oo aad i cabsi galiyaan la kulmay tiri gabadhu mayna sheegin sababta ay dabaqa kor ugu kortay laakiin waxaan ka dhex fahmay hadalkeeda inay ka wado inay iska tuuri rabtay ama rabtay inay isdisho sidaan u fahmay hadalka
laakiin ayadu maynan cadaynin meeshaas markaan marayo waxaan bilaabay inaan ducadii iyo baryihii ciise iyo maryamo kala jeesto maxaa yeelay waxaan dareemay tiri inaysan ii jawaabaynin wax isbedelaynin waxaan leeyahay tiri qalbiga ii daji ciisow dhiba ay haysta dhibkayga iga qaad qalbiga ii daji waxaasan leeyahay tiri waxaba yaraatay jawaaba ama deganaansho ah amaba xaaladda aan ku jiro wax iga bedeli kara waan la kulmi waayay meeshaas markaan istaagay oo roobka iyo dabaysha iyo waxyaabahaas oo dhan aan la kulmay ayaan waxaan idhiyay tiri ilaahi roobkan cirka ka socda keenayo ilaahi dhabta ahaa ee koonkan abuurayo ilaahi aniga carabka iyo indhaha isiiyey oo jismigan uga abuurayo ilaahi koonkan i keenayo adaan ku baryayaa adaan kaa rabaa inaad badbaadiso adaan kaa rabaa inaad qalbiga iyo niyadda ii dejisid siday gabadhu leedahay subxaanallah hadalladeeda markaad dhegaysato waxaad la yaabaysaa in waxyaabo mucjiso u eg ay iskugu soo aadeen isla markii waxay tiri aan meesha taagnaa saacad ku dhawaadan waxay tiri meesha markii hore aan fadhiyey markii laakiin aan ducada ilaahay bilaabay kama soo wareeginay tiri 5 daqiiqo waxaa bilowday tiri aadaan ama adinka masaajidda ku xeeran xaafadeena masaajidda waxay tiri midba midka ka dambeeyo midba maruu aadaanka la kacaya markuu waxay tiri Allahu akbar tumaba kala go'aysaba anigana waxaan ku celinayaa tiri ilaahow nashiid al-inshaad ma hadalkaaga ilaahow nashiid al-inshaad ma adaa soo dajiye ilaahi abuurayo jismigan iyo aqligan maskaxdan isiyo adduunkan abuurayo oo cirka abuuro dhulka abuurayo ii gargaar oo dhibka aan ku jiro wax iiga qabo mar alla waxay tiri markaan ilaahdo ilaahow nashiid al-inshaad ma hadalkaagiya ma adaa soo dajiyay waxaan maqlaayay tiri masjid cusub Allahu akbar masaajid cusub hadda iyo aadaan cusub bilaabay markii dambe ilaahi subhanahu wa ta'ala qalbigayga dhan ayuu bedelay waxaan dareemay tiri Allahu akbar taba wax ilaahay aniga i waafajinayo oo ila kulminayo inay tahay waxa xilligaas i soo jeediyay dhibkaas aan soo maray inaan ugu dambeyntii ilaahay baryo ugu dambeyntiina ilaahay baryahayga ajiibo qalbigayga waxaan dareemay tiri inuu dagay markaas waxa afkayga ka soo baxday tiri ha ilaahu waad ka weyn tahay hadallada nashiid al-inshaad ku yaala inay adiga xaggaaga ka yimaadeen ilaahu waad ka weyn tahay waxa meeshaas ku yaala in adiga lagu nisbeeyo qalbiga ii dagay ayay tiri laakiin arinta la yaab kale waxay tahay inaysan sheekadu halkaas ku dhamaanin murugadii iyo wixii dhan ayaa iga dagay ayay tiri hoos ayaan u soo degay gurigaygaan ku soo laabtay qolkaygaan soo galay tiri anoo fadhiya ayaa waxa la aqimay ama la galay salaadii subax masjid marka waxa noo dhaweey tiri mar walba aan codkiisa maqalno oo nin odaya oo 2 suuradood maalin walba ku tukada oo tujiyo way sheegtay xataa 2 suuradood waxay tiri sabbix isma rabbikal a'la iyo qul huwallahu ahad umba ku tukadaa tiri subax kasta ilaa anagu aan xifdinay mikrofonkana waa u furan yahay banaanka maalintaas laakiin waxay tiri waxa dhacay wax mucjiso ah waxay tiri waxa yimid sheekh cusub oo subaxda salaada tujinayay oo akhrinaya aayadaha ugu dambeeya ee ku jira suuratul maa'ida oo ka hadlaya hadal dhexmaray ilaahi subhanahu wa ta'ala iyo ciise maalinta aakhira dhexmaraya oo ciise ilaahi oo weydiinayo in asaga uu ku yiri aniga iyo hooyaday ilaah iga dhigta inuu ku yiri kristaanka ilaa siday aaminsan yihiin waa sidaas anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilaahayni min dunillah yani sheekada ku saabsan ciise iyo waxa ay ka sheegeen dadka kristaanka ah oo ay ku tilmaameen inuu yahay ilaah oo ciise oo iska anfinayo oo u diidayo ilaahayna uu weydiinayo su'aalo ah inuu asagu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu og yahay laakiin dadka la danaysiinaya dabcan aayadahan waxay tiri anoo hore u maqlay markaas ka hor haddana waxay tiri maalintaas ka hor waligay inaan maqlay xataa ma moodeynay tiri sida ay maskaxdeyda iyo qalbigayga ugu dhacayeen maalintaas noloshayda inaan hadda ka hor maqal ay ilaahayeen ay tiri waxay ka hadlaysaa markay aayadaha akhrinayso gabadha markaad dhageysanayso codkeeda aad ay u oynaysaa codadkeeda qaybo kamid ah iyadoo aayadahan akhrinaysa bal dhageysta انما في اليوم ده وفي اللحظه دي لقيت شيء جديد خالص تاني غير اللي احنا متعودين نسمعه كل يوم في الوقت ده كلام دخل كده في قلبي وعشش من جوه كلام اتحفر جوايا بحثت عنه على النت كتبته حرام قال ايه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لا يا رب معلش ما قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ما قالش لا ما قالش أنا إله يسوع ما قالش أنا إله ما قال
لكن احنا قلنا. هو ما قالش واحنا قلنا، ما قالش كده، انا قلقان. ايوه بقى قلقان. قال سبحانك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، إن كنت قلت فقد علمت. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت علام الغيوب. يا رب صح يا رب، نشهد على كلامك، أنت ربنا. أيوة. barnaamijkana maanta intaas ayuu ku egyahay. waxaan ka codsanayaa inaad aragtiyadiina igula wadaagtaan commentiga, sidoo kale aad subscribe tiraahdaan iyo weliba inaad share garaysaan oo la wadaagtaan asxaabtiina barnaamijkan. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.